adduunyadu waxay leedahay madaxweynaha marka la doorto ay madaxweynaha fikradiisa eegaan ee ay ajendihiisa eegaan ee ay istiraatiijiyadiisa eegaan markaasay qaraar gaari doonaan isku dhafa isku jira gaari doonaan sida ay Soomaalida ula falgali doonaan waxa kaloo aan idin sheegayaa sida imika socota haddii ay January aakhirkeeda madaxweyne yeelan weyno waxaa laga yaabaa in ay naga baxaan mashaariicda xataa socota ay joojiyaan marka tala ilaahay baa haya waxaan ku tala jirnaa cid walibana ka waraysa inaan hore iskaga galo doorashooyinka iska dhamayno laakiin kolleeyo dalkan waxa uu yaalla waxa weeye inaan inagu isku filaano weligeed baa ayaa la yidhahdaa waa la isku filaano iska hadal weyn laakiin figuriska la soo saaraa waa inay tilmaamayaan kharashkaaga inaad isku miisaani karto iyo waxa kusoo gelaya kugu filaada waxaan rabnaa ka hadlano overview guud 2021 wixii la gaaray iyo dhibaatooyinkii dhacay 2022 waxa hadafku yahay si wax loo qabto iyo macnaha meelaha focuska la saarayo dawladdu ay rabto inay ka qabato iyo questionska ama su'aalaha ka imaan doona dadka waxa halka fariisan doona wasiirka maaliyadda maxaa la yiraahdaa xubin ka socota guddiga maaliyadda baarlamaanka iyo anigoo technical iyo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda marka su'aalaha weydiisaan iyo talooyinka noo soo jeedisaan insha Allah waxaan noqon doonaa kuwa aan qoranno aan markaa ka jawaabno dadka cashuuraha bixinaya in boono arrin boono ay ku saabsanay annaga nidaamka noo degsan waxa weeye qofku inuusan lacag caddaana qof wasaaradda maaliyadda ka socdo ama shaqaale wasaaraddu leedahay uba dhiibi karin qofka waxa xaq loogu leeyahay in cashuurta uu bixinayo loo sheego kadib uu bangiga tago boonada uu bangiga ka soo qaato oo isagoo ku soo shubo koontada lacag caddaana shaqaalaha wasaaraddu uma idmana inay qabtaan mana aha doorkooda taasna waxaan u malaynayaa haddii meelo kale dee ay wax iska jiraan case waa iska dhici karaa laakiin ma aha siyaasadda wasaaradda ma aha waana inaad soo report garaysaan haddii lacag gacan lagu qaadayo ay noqoto in ay idin soo gaadho